kulanti wacan oo wanaagsan. Halkan waa SWC Media, ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela macluumaadka ka dahsoon. Fadlan subscribe saar channelka haddii aadan hore u saarin. Ku soo dhawow muuqaalkan cusub. waxaan bartay in jaamacadda iyo iskuulka aan wax ka baranno kadib aan imtixaanada galno, laakiin nolosha imtixaanka ayaan galnaa kadib markaasaan wax barannaa, yacni khibrad. waxaan bartay in hadal gaaban oo idin dhex mara qof xigmad badan ama dood yar ay u dhiganto bilduruuseed oo kale. waxaan bartay inaysan muhiim ahayn maxaad hadda haysaa, laakiin ay muhiim tahay xaggee daqiiqadan kadib rabtaa inaad gaartid. waxaan bartay inay badan yihiin dadka hela waanooyin badan, laakiin ay yar yihiin inta ku dhaqanta. waxaan bartay in khasaaradu aysan ceeb ahayn, laakiin ay ceeb tahay in aan waxba la tijaabin. waxaan bartay in ay laga marmaan tahay in qofku isku dayo inuu sameeyo camal gaarsiiya ilaa xindigaha, laakiin uusan iloobin in lugihiisu ay dhulka yaallaan. waxaan bartay in farqi weyn u dhexeeyo tijaabinta badan iyo ka quusashada. 4 ha ka tegin. 1 salaada, 2 qur'aanka, 3 xuska rabbi, 4 qaraabadu aad xiriiriso. يعني ملخص أخي الحبيب، ركز على جانبك الروحي أكثر بكثير من تركيزك على جانبك الجسدي. يعني الصلاة أهم من الإنترنت، الصلاة أهم من الدراسة والعمل، أهم من اللعب، أهم من كل من تعرفهم من الناس، أهم من أبيك وأمك. تخيل، لأن الجانب الروحي فقط هو مدخلك إلى الجنة. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل؟ ترجو الجنان بغير قربى، تخشى العذاب ولا تصلي، تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. waxaan rajaynayaa wax badan inay kaaga baxeen muddada aad daawanaysay. fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka SWC Media. mahadsanid tan iyo kulanti dambe. Wassalaamu calaykum.